ma Gastro ama cunto Sumoobay. Halkan waxaa Hagaha calool-xumadaada. Haddii aad leedahay calool-jiid, shuban oo aad matagaysay, way fududahay inaad eedayso caloosha ama cuntada ka baxsan. Laakiin waa kuwee Gastro ama cunto ku sumowga? Waa maxay faraqa u dhexeeya? Waa maxay gastroenteritis? Gastroenteritis ama gastroga oo kooban waa caabuq uu keeno virus, bakteeriya ama mikrobe kale. Mindhicirku waxaa ka buuxa unugyo ay ku jiraan mikrobes caafimaad qaba iyo unugyada ku dahaaran mindhicirka. Laakiin marka fayrasyada, bakteeriyada iyo mikrobes kale ay bilaabaan inay soo galaan mindhicirkaada, way gumaystaan tiro badan yihiin oo ay ugu dambayntii keenaan unugyada hubka mindhicirka inay bararaan. Cudurka itis ee dhammaadka gastroenteritis macnaheedu waa barar. Gastroenteritis waa mid aad u badan. Australia gudaheeda waxaa lagu qiyaasaa 1.7 milyan oo xaaladood sanadkii. Fayrasyada mindhicirka noroviruses waxay sababi karaan gastroenteritis iyaga oo ku celcelinaya mindhicirka. Haddaba xagee ka yimaadaan mikrobeska keena gastroga? Cunista cunto wasakhaysan inta badan waa isha. Si kastaba ha ahaatee, waxaad ku heli kartaa mikrobeskan siyaabo kale. Tusaale ahaan, haddii aad taabato meel uu qofka buka gastroenteritiska fayraska uu matagay, fayrasku wuxuu u gudbi karaa gacmahaaga. Haddii gacmahaagu ay taabteen afkaaga, adigana waxaa kugu dhici karta gastroenteritis virus ah. Waa maxay sumowga cuntada? Sumowga cuntada waxaa loola jeedaa ka bukoonka cunista cuntada ay ku wasakhaysan tahay kiimikooyinka, mikrobes ama sunta. Tusaale ahaan, haddii aad cuntay cunto wasakhaysan sunta cayayaanka ama metil alcohol metanol, taas oo loo xisaabin lahaa sida cunto sumaysan. Haddii aad cuntay kalluunka buffer ama boqoshada sunta ah oo weliba la xisaabi doono. Laakiin sumowga cuntadu kuma jiraan saamaynta cunista cunto aad xasaasiyad ku leedahay. Inta badan sumowga cuntada ayaa natiijada cuntada ay wasakheeyeen mikrobes iyo suntooda. Markaad cunto ama cabto waxay la mid tahay gantaal la dhacay. Sunta gaar ahaan waxay si degdeg ah u keeni kartaa caabuq, waxayna dhaawacdaa hubka mindhicirka. Si loogu daro jahwareerka, ku sumowga cuntada waxaa badanaa loo tixraacaa gastroenteritiska cuntada. Sumowga cuntada ama gastroenteritiska cuntada ayaa sidoo kale ku badan Australia. Waxay ka dhigan tahay 3 meelood meel dhammaan kiisaska gastroenteritiska ama qiyaastii 4 milyan oo xaaladood sanadkii. Sideen u kala saari karnaa labadaas? Gastroenteritiska iyo ku sumowga cuntada labaduba waxay leeyihiin astaamo ay ka mid yihiin shuban, matag, lalabo, calool xanuun, qandho iyo madax xanuun. Laakiin calaamadahani waxay ku imaan karaan siyaabo kala duwan. Gastroenteritiska fayraska sida norovirus wuxuu badanaa keenaa calaamadaha 2-4 saacadood kadib soo gaadhista, kaas oo socon kara 1 ilaa 2 maalmood. Laakiin ku sumowga cuntada kadib markaad cuntid sunta microbial waxay si degdeg ah u imaan kartaa. Tusaale ahaan, sunta bakteeriyada Staphylococcus aureus waxay keeni kartaa calaamado 3 daqiiqo gudahood markaad cunto wasakhaysan, sida hilibka aan la karin. Nasiib wanaag, calaamaduhu waxay caadi ahaan ka soo roonaadaan 2-4 saacadood gudahood. Calaamaduhu mar walba si degdeg ah uma yimaadaan dhammaan xaaladaha ku sumowga bakteeriyada. Tusaale ahaan, waxay qaadan kartaa ilaa 7 maalmood inta u dhaxaysa la kulanka listeria iyo calaamadaha dhacaya, inkastoo celcelis ahaan ay tahay ilaa 3 toddobaad. Muddadan dheer ee soo jiidashada waxay adkeyn kartaa in la shaqeeyo haddii cunto gaar ah ay mas'uul ka tahay qof xanuunsanaya. Farmaajo jilicsan. Jiiska jilicsan ayaa noqon kara isha listeria. Sida tilmaamay guud ah, sumowga cuntadu si dhaqso ah ayay u dhacdaa saacadaha gudahooda marka la cuno cunto wasakhaysan, halka gastroenteritisku uu qaadan karo maalin ama ka badan cuntada kadib si uu u bukoodo. Laakiin ma jiro heer adag oo degdeg ah. Sideen uga hortagaa? Taxadar isku mid ah marka la maaraynayo cuntada ayaa lagu dabaqaa ka hortaga caloosha iyo mindhicirka iyo sumowga cuntada. Tallaabooyinkani ma aha oo kaliya inay hoos u dhigaan halista in lagugu saameeyo meesha ugu horaysa, waxay hoos u dhigaan khatarta ah inaad dadka kale qaadsiin karto. Gacmahaaga si fiican ugu dhaq saabuun iyo biyo ka hor intaadan cunto diyaarin. U isticmaal looxa iyo maacuunta kala goonida ah ee cuntada ceeriin iyo la kariyey si aad uga hortagto fadaraynta. Si fiican u kari cuntada oo ku kaydi heerkul ammaan ah. Gastroenteritis waxay ku lug yeelan kartaa gudbinta mikrobes iyada oo loo marayo siyaabo aan cunto ahayn, tusaale ahaan, iyada oo loo marayo gacmahaaga haddii aadan dhaqin gacmahaaga kadib markaad isticmaasho musqusha ama kadib markaad beddesho xafaayadda ilmaha. Marka gacmahaaga dhaq kadib, si aad uga ilaaliso kuwa kale inay bukoonaadaan, iska hubi inaad si fiican u jeerisid meelaha wasakhaysan kadib marka qof matago ama shubmo. Marka hore, xidho galoofyada oo ku maydh meelaha biyo kulul iyo saabuunta. Kadib jeermi dil adiga oo isticmaalaya 1 kiilo guriga ka kooban 1 chlorite. Sideen ku fiicnaan karaa? Daaweynta gastroenteritiska iyo sumowga cuntada labadaba waxay diiradda saaraan ka hortaga fuuq-baxa iyo yaraynta calaamadaha. Si aad uga fogaato fuuq-baxa, cabitaano badan. Kiisaska dhexdhexaadka ama kuwa daran waxaad farmashiyaha ka iibsan kartaa hal fuuq celinta afka oo ganacsi ah.
waxa kale oo aad samayn kartaa halka fuuq celinta afkaaga adiga oo ku daraya 6 qaado oo sonkor ah, qaado oo milix ah iyo qaado oo ah sodium bicarbonate litir oo biyo ah. Waxaad ku faafi kartaa qaar ka mid ah caadi ah dareenka. Haddii astaamuhu ay daran yihiin ama ay sii jiraan waa inaad u tagtaa gigaaga ama aad qaybta gargaarka degdega ah. Finn Entho, ku-xigeenka Professor iyo cilmi nafsiga gastroenterologiska jaamacadda Western Sydney.